جمعية أمة الخيرية ayaa waxay dadka abaaraysan ee ku nool degmada Faraweyne qaar kamida tuulooyinka hoos yimaada degmada Faraweyne waxa ay gaarsiisay deeqo isugu jira raashin iyo waliba biyo tuulooyinka Xareed Guul Allah iyo Muqdheer waxa ay gaarsiisay 9 booyadood oo biyo ah sidoo kale waxa ay raashin gaarsiisay tuulada wadama Kaahir taasi oo ay gaarsiisay 180 qoys waxana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha Jimciyada Umma al-Khayriya iyo gudoomiyaha degmada Faraweyne oo mahad ciddii ka qayb qaadatay sidii ay u caawin lahaayeen dadka tabaalaysan waxana hadaladoodii kamid ahaa waxaan maanta halkan ku gaarsiinay 180 qoys inaanu u gudbino bariis sonkor iyo saliid marka 180 qoys waa maanta aan halkan ku fargaraynay intii balay waxoogaa yar ay dib ku sii yar noolaan lahaayeen oo saahan oo ah digjoojinuna waxa kale degmada Faraweyne maanta aanu soo gaarsiinay 9 booyadood amiin waxaan halka 3 booyadood oo Muqdheer ah iyo 3 booyadood oo Guul Allah 6 booyadood deegaankan oogada wuxuu isku noqonaysaa 9 booyadood ururka ummad waqooyi iyo oogaba wuxuu maanta qaybinayay 360 qoys iyo 25 booyadood oo ay ku soo deeqeen walaalahooda qurba joog ah iyo walaalahooda dalka joogaba mid $5 bixiya iyo mid wax ka badan bixiya iyo mid hantidiisa ku deeqaba dhammaantiin waxa leeyahay waa aad mahadsantiin ilaahayna miisaanka xasanaadka idinku daro hore uma nala ururo nala shaqeeya amba ururo wax nala qabta laakiin ururka maanta noo keenay 180 qoys raashinkooda iyo 9 qoysood waa mid aan ugu mahad celinayno ciddii ku soo tabarucday ururkii ku soo shaqeeyna waa mid miisaanka xasanaadka ilaahay ugu dari doono waxaan leenahay maanta waa xilligii ugu adkayd bishii saddexaad ee Maarch baa lagu jiraa oo iyo gaajo way isku darsantay waa bisha u baahan gurmadka waxa yar ee dadka la gaarsiiyo maanta wuxuu tarayo maanta sidoo kale waxa ay Jimciyada Umma al-Khayriya deeqo raashin iyo biyo gaarsiisay tuulooyinka Balayga Cas biyo baxday ilinta bari quraco iyo waliba afcad waxaana ay isugu jireen deeqahaasi raashin iyo waliba biyo waxaana halkaasi ka hadlay una mahad celiyay dadka tuulooyinkaasi ku noolaa ciddii ka soo qayb qaadatay iyo waliba Jimciyada Umma al-Khayriya sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka Jimciyada Umma al-Khayriya iyo mas'uuliyiin kale waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaan soo gabagabeynaa safarkeygii oo aan ku soo marnay ilaa 7 tuulo oo mid kasta u soo qaybinay raashin iyo biyo oo qaarkoodna biyisiinay walow raashinkaan siina u kooban yahay marka waxa marka hore waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa ururka ummad guud ahaan gaar ahaan qurba jooga iyo xubnaha ganacsatada iyo xubnaha kale ee civil society u shaqeeya ee guud ahaan ama qurba joog ha noqdaan amba qolqol joogba iyo qof kasta oo ka qayb qaatay dadka la caawinayo ee baahan ee abaaruhu ay naafeeyeen ilaa saaka waan soo soconay waxaan ka soo bilownay Balayga Cas waxaan ku sii xigsignay beeyo baxday waxaan ku sii xigsiinay ilinta bari hadda ayaan soo gaarnay quraco xaaladeeda aad bay u liidatay marka waxaan u mahadnaqaynaa in qoliyaha qurba joogta iyo qalbihii magaalada Hargeysa joogay ganacsatada ay lacagta laga soo ururiyay lacagtiina waa dadkay iyo ummad anagoo ummadaho soo gaarsiinay halkan gargaarkii waa dadkaysaan gidigin sida ama waa qolo walba waxaan siinay jawaan bariisa gadbad sonkora iyo saliid waxaan ku balan qaadnay wixii dambe yimaadey ilaahay soo dhibaamada qurbaha wax ka timaada madalka gudihiisa inaan soo gaarsiino dadkina xaaladiinni waa la socotaan oo ka soo xid ka qarsooni ma jiro nolosha miyiga had iyo goolaale waxa ku beysgareysatay 3 shay oo ah biyo baad iyo xoolo way ka wada arkaysaan waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa oo kale kulay maanta aniga dalkii jooga waayaha wadanka yaalana ilaahay uu baa qiyaasi kara waxaan aad iyo aad uga codsanayaa kulay qurba joogta wadamada Yurub iyo caalamka ku kala filqsan inay dadkooda wixii ay ku soo tari karaan ku soo taraan una soo mariyaan ummad Xamse Jaam Xuseen telefishinka caalamiga Star Hargeysa